السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أصحابتنا قالي كسر هذا القناة كنا فضلنا هدي أنا وعصف تهين سبسكرايب إنه لها بالكنا فروه سياد نقطة دعوة كوبات هذا هورون اللي جوكتنا وكم هسنت اللي جوكتان كينا أدبا أم هسنتين رنتي وحدين سهر مرينا يا رمضان مبارك إن الله نقدي كوكو كفاء يديسته عبادة محيهاتي عمل كسوبنا الله نجا أقبله الله نقدي كوكو لو قدام بدافع بشر رمضان وحاكو جرتو هبين آدي وفضل بدن إلهي هنوافجيو إن شاء الله تعالى أنت صدقني كسو قدبه ما أنتم حايدين سو قدبنا إن شاء الله تعالى أنت إيسان عقبات داني كوجو إيمانين كهرتك الوقاية خير من العلاج أي عربت دهان كهرتك وحو كوناكسن هاي دوينتا بينما معها وحول بمركات كهرتك كرتو iyo dawadeed waxa macquul inay waqti dheer kugu qaato laakiin ka hortagga markaa sameynayso inuu kugu imaanba waxa waxaan ka hadli doonaa blocked fallopian tube waxaa la dhahaa labadaas gacan ugxaanta ka soo qaada ugxaanta xilliga ay diyaarka tahay soo qaadaan labadaas gacmood yacni maasha allah waxay muhiim u tahay inuu ilmaha beermo gacmahaasi waxay muhiim u yihiin inuu ubad ilaahay ku siiyo transfer waaye xaggan ukunta ka soo qaadaa intan waxay ka qaadaa isbeermaday ka qaadaa marka haddii block ka yihiin ama ay ka xiran yihiin sida ugu jeedno halkani wax ma sii gudbi karaan mana soo gudbi karaan way xiran tahaba marka inta aysan taasi kugu dhicin ka hortag way jiraan gabdho far badan oo maxay ahayd ka xiran yihiin allah u furo qalimo lagu sameeyo qalin haddii la sameeyo xitaa waa 50-50 weeye laakiin insha Allah taala inta aad caafimaad qabtaba ka hortag way jiraan dad ku dhashta laakiin dad infection iyo waxyaabo ka xirxiraan way jiraan marka ka hortag waxa sameynaysaa xilliga oo periodka ku joogo ama caadada maalinka koowaad oo periodka ku joogo waxa sameynaysaa waxa soo qaadanaysaa koob ayaa waxa ku soo shubanaysaa biyo qandac ah laba qaado oo malab ayaa ku darsanaysaa subax walba intuu ku joogo waad cabaysaa aad iyo aad ayay kugu nadiifinayaan gudahaada dhan wuxuu ka dhigayaa clean halfkaas biyaha qandac ah ama kuleylka ah kuleyl zaa'id la marba adiga wax la cabi karo yacni diirimaad leh oo shaah camad ah waxaad ku darsanaysaa laba qaando malab ah waad cabaysaa subax walba intuu uu ku joogo marka taasi waxay ka hortagaysaa inuu wasaqda dhan hotro jirka kaaga soo baxday kow ka dhigaysaa oo nadiif kuu soo dhigo sidoo kale tan tubooyinkaas inayna ka xiriman ayuu ka hortagayaa bakay qashinka ama infectionka wuxuu ka dhishtaa ama meelahan xiran waxay ka dhishtaan xinjiro ururay oo kaleeto ayay ka dhishtaan marka si aysan taasi kugu dhicin waxaadoo dhanba clean ayay kuu soo noqonayaan haddii aad samayso intaasi dhibaatada ay leeyihiin waxaa ka mid ah qofka uu ka xiran yihiin dhaqsi ilmo uma helo ilaa la furo maxay tahay adigu bacda shida wa tacab ilaahay qoftuu siinay waa gooni laakiin inta badan wasiiladii ay soo mari lahaayeen wixii ayaa xiran marka jidkan hadduu xiran yahay ma gudbi kartid jidkaas hadduu xiran yahayna may soo gudbi karaan wax walba marka gabdho ka faa'iideysta ayaa idin leeyahay ilaahay inta ka xanuunsan allah u caafiyo inta u bateysata allah u barakeeyo inta haysanna uba degdega allah siiyo marka ka hortaga ayaa idin leeyahay sideeda banaanba ka hortaga aad buu ugu wanaagsan yahay daweynta xilli walba uu ku joogo biyahaas diirimaadka leh iyo waxaad cabaysaa malabkaas maasha allah si wanaagsan ayuu kugu soo nadiifinaya waxba meelaha kaaga harharimayaan qashimada ururay ayaa noqdo maxay ahayd ama wasaqda ururta ayaa noqoto inay ka xirto fallopian tube-ka marka allah naga koriyo insha Allah taala ku dadaal ayaa idin leeyahay gabdha caafimaadkiina mar walba oo periodku ku joogana intaas samee insha Allah taala waad ka badbaadaysaa soo dhawaada ayaa idin leeyahay mar kale Ramadan mubaarak.